tanoo kale haddana inay dhacdahay waa labageeriyaad waaye waa xanuun kaloo sii dheeri ah waaye argagixisadu waa joogtaa dagaalay dalka ku haysaa ma inkirayno iskama indhasaabayno laakiin niman dagaal lagu haayo oo cararaayo oo tuuganimo wax ku samaynaayo inay yihiin iyo niman daanshoonaayo oo beledkan wixii baasigii la aruursaday meel walba u sii socda waxaynaayo gaabiska annaga aan tuhmayna inuu meesha ka jiran arkayna kaas waaye aad iyo aad waxaan u tabaynaa doorkii dowladda inuu meesha gaabis xoog leh inuu ka jiro ma aha siyaasad ma aha magaciisi laakiin madaxtooyada agteeda iyo maxaanku idhahdaaye hotel maxaanku waa ogeynay waa aragnay waa u joognay meeshii magaalada inay ugu amni badnaatay ahayday maantana meesha wixii ka dhacay waa ognahay codkaasi idin soo gaadhayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayo dhacdadii foosha xumayd ee shalay ka dhacday xayndaabka madaxtooyada qaranka soomaaliya taasi oo ahayd in 7 madaafiic ay hal mar ku soo dhacaan xayndaabka madaxtooyada qaranka soomaaliya kuwaasi oo waxyeeleeyay xaafadaha ku hareeraysan madaxtooyada qaranka soomaaliya sidoo kale tana qaybo ka mid a madaafiicdaasi ay ku dhaceen mid ka mid a iskuul ku yaala xaafadda xamarweyne taasi oo sababtay dhimasho iyo weliba sidoo kale dhaawac aad u tiro badan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka hor hadlayay laamaha ammaanka ayaa sheegay in madaxtooyada lasoo weeraro ay ka dhigan tahay in amnigii qaranka gebi ahaanba uu gacanta ka baxay waxa uu sidoo kale sheegay in ururka al-shabaab ay iyagoo iska daanshoonaya ay ku soo ridayaan madaafiic iyo weliba weeraro markaasi bahalnimo ay ka geysanayaan xarumaha dowladda iyo weliba xayndaabka madaxtooyada qaranka soomaaliya asagoo dhanka kalena xusay dhacdadii foosha xumayd ee ka dhacday xayndaabka madaxtooyada bishii aynu soo dhaafnay taasi oo ahayd in ururka al-shabaab ay kasoo gudbaan baraha control sidoo kalena ay soo gaadhaan hotel villa royce ku yaalo xayndaabka madaxtooyada qaranka soomaaliya waxaana uu dhaliishaasi iyo mas-uuliyaddeeda dusha u saaray laamaha ammaanka gaar ahaan taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka nisa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa dhanka kala qeexay inay jiraan khatar amni oo markaasi asaga soo food saartay maadaama ururka al-shabaab ay madaafiic iyo gantaallo ay ku garaaci karaan gudaha madaxtooyada kuwaasi oo shalayto wixii dhacayba ay ahayd mid markaasi daliil cad ugu filan in madaxtooyada ay khatar amni ku sugan tahay waxa uu dhanka kale sheegay in asaga iyo caruurtiisu ay xaaladii ugu darayd abid ay haatan wajahayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo cilaamiye dagaal ka dhana ururka al-shabaab ayaa u muuqda haatan mid gebi ahaanba ee laamaha ammaanka ee magaalada muqdisho saarayo dhaliisha ugu weyn maadaama ururka al-shabaab ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ku jebiyeen furimaha hore ee dagaalka sidoo kalena ciidamadu ay gaadheen guulihii ugu weynaa oo markaasi abid laga gaadho kooxaha argagixisada al-shabaab tan iyo isbeddelkii ka dhacay dalka soomaaliya waxaa waddanka ka hirgalay kacdoon xooggan oo markaasi lagu jebinayo kooxaha argagixisada deegaanadii ay ku sugnaayeen dhowr iyo 10 sane ee ugu dambeysay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaana qiray in ay haatan tahay xilligii la jebin lahaa sidoo kalena laga adkaan lahaa kooxaha khawaarijta waana arrinta keentay in dagaal uu cilaamiyo sidoo kalena shacbiga soomaaliyeed ay gacmaha qabsadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya sifa gebi ahaanba loo xoreeyo deegaanada markaasi ururka al-shabaab ay ku sugan yihiin waana midda sababtay in gobolada shabeellaha dhexe hiiraan iyo weliba sidoo kaleeto gobolka mudug gebi ahaanba ama gobolada galmudug intooda badan laga xoreeyo kooxaha khawaarijta laakiin waxaa jiro khataro markaasi ku soo wajahan caasimadda iyo guud ahaanba dalka soomaaliya taasi oo sababtay ama markhaatiba u ah dhacdooyinkii foosha xumaa ee dhacay dhowrkii beri ee ugu dambeysay kuwaasi oo ka kala dhacay xayndaabka madaxtooyada oo shalayto ururka al-shabaab ay ku soo tuureen in ka badan 7 gantaal kuwaasi oo waxyeeleeyay xaafadaha dariska ee madaxtooyada qaranka soomaaliya ku hareeraysan sidoo kalena waxaa ka horreysay dhacdadii foosha xumayd ee ka dhacday xarunta gobolka banaadir taasi oo ay ku dhinteen dad gaaraya 6 qof bal madaxweynaha hadalkiisa aan isla daawano kadibna qaybaha dambe aan iskugu soo laabanno aad iyo aad waxaan u tabaynaa doorkii dowladda inuu meesha gaabis xoog leh inuu ka jiro ma aha siyaasad ma aha magaciisi laakiin madaxtooyada agteeda iyo maxaanku idhahdaaye hotel maxaanku idhahdaa waa ogeynay waa aragnay waa u joognay meeshii magaalada inay ugu amni badnaatay ahayday maantana meesha wixii ka dhacay waa ognahay ma eedaynayno
ma dhaliilayno nalama liitaan wiilasha ciidamada ah ee amniga jooga ee qaarkood dhimanaya qaarkoodna dhaawacayo maalin walba dhimanaya ee dhaawacmayo waa shuhada waa geesiyiin waxay mudan yihiin qadarin iyo waxweyn amnigeenna meesha uu ka dayacan yahay waa dhinaca hoggaanka iyo siyaasadda waay amnigu siyaasaddaa hagto siduu u shaqaynaayo iyo wuxuu waxaynayo meel fogow dalkan ka yimiday meel fogoo dhib badanoo ka yimiday horumara badanaa la soo sameeyey waana lagu jiraa. dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa in ururka al-shabaab ayagoo gawaari cadcad wato ay magaalada ku daashoonayaan halka markaasi ay jiraan lacagihii ugu tirada badnaa oo markaasi dowladda khasnadeeda lagala baxay kuwaasi oo iyadana uu sheegay in ay ururka al-shabaab markaasi ku iibsanayaan sidoo kalena ay ku isticmaalayaan gudaha magaalada muqdisho waxaana arrintaasi u sahlaya ayuu yidhi taliyaal iyo weliba sidoo kale mas-uuliyiin sare oo markaasi ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu jeedinaya taliyaasha ciidamada qaranka iyo weliba sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku soo aadayso xili ururka al-shabaab lagu jebiyey furimaha hore dagaalka sidoo kaleetana ay jiraan weeraro guracan oo ay ka geysanayaan gudaha magaalada muqdisho si kastaba eedan ma aha markii ugu horreysay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu jeedinayo taliyaasha ciidamada saraakiisha laamaha ammaanka iyo weliba qaar ka mid ah mas-uuliyiinta markaasi ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya waxay ahayd markii labaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu horey ugu jeediyey eedan xilligii ururka al-shabaab ay galeen hotel xayaad iyo weliba hotel villa royce taasi oo laamaha ammaanka uu ku eedeeyey inay ayagu yihiin kuwa fududaynayo mas-uuliyaddana qaadanayo qaraxyada iyo weliba weerarada guracan ee ururka al-shabaab ay ku soo qaadayaan gudaha dalka soomaaliya sidoo kaleeto waxaa iyadna jiro tuhumo markaasi laga qabo ama markaasi madaxweynaha laftirkiisa uu farta ku fiiqay oo ah taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka nisa in uu asagu markaasi qayb ka noqon karo xaaladaha markaasi amni darro ee ka jirto gudaha magaalada muqdisho walow madaxweynuhu uu qabo digniinaha noocaasi haddana waxa uu sheegay haddii uu xilka ka qaado mahad salaad in uu khatartan ka weyn uu wajihi karo waxaana haatan madaxweynaha la sheegay in ay khasab ku noqotay inuu gebi ahaanba ilaawo xilka qaadista taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka nisa mahad salaad horey waxaan ogeyn in taliyihii hore ama agaasimihii hore hay-adda sirdoonka qaranka nisa faad yaasiin xaaji daahir inuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uga digay in gebi ahaanba uusan aqoon u lahayn magacaabista taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka nisa mahad salaad oon ognahay mahad salaad in marar badan uu taliyihii hore hay-adda sirdoonka qaranka nisa ku eedeeyey inuu gebi ahaanba ka tirsan yahay ama uu ka mid yahay urka argagixisada al-shabaab laakiin waxaa jirtay sidoo kaleetana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qaar ka mid a ganacsatada soomaaliyeed oo codsi u gudbiyey kaasi oo ahaa in taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka nisa mahad salaad uu yahay shakhsiga lacagaha ka aruuriyo sidoo kalena u geeyo ururka argagixisada al-shabaab laakiin arrintaasi madaxweynaha markii loo keenay gebi ahaanba waxa uu sheegay inuu tallaabo qaadi doono laakiin waa midda keentay in madaxweynaha haatan uu sheego inay ku adkaatay xilka qaadista taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka nisa sidoo kale mahad salaad ayaa isaguna waxaa haatan la sheegayaaba in uu galaangal weyn ku leeyahay dhammaanba xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi bare waxa isaga uuna sheegina gebi ahaanba aysan gudbin karin dhowaan waxaan ogeyn in 7 qodob oo markaasi iskugu jiray qodobada socdaalka iyo weliba sidoo kale amniga mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya in loo gudbiyo golaha wasiirada ayna isla markiiba ayagoon dood ka keenin ay ansixiyeen taasi ayaana dhalisay shaki weyn oo ku saabsan in mahad salaad uu galaangal weyn ku leeyahay xubnaha iyo weliba sidoo kaleeto aan dhehe xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi bare dhinaca kale baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo la rabay inay arrintan ka doodaan sidoo kalena ay ansixiyaan ayaa iyaguna gaashaanka u daruray gebi ahaanba ansixinta waana midda keentay in xildhibaanada kooramkii uu buuxsan waayo dhowrkii kala fadhi ee ugu dambeysay ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya daawadayaal waxaa dhinaca kale ayadna jirto in qaar ka mid a khubarada amniga ee xerada xalane ay madaxweynaha ku wargeliyeen
in dhacdooyinka foosh xun ee ka dhacayo xayndaabka madaxtooyada uu fulinayo taliyaha ama agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka nisa mahasala. laakiin arrintaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo xeerinayo saaxiibtinimadii iyo weliba sidoo kaleeto dowrkii gelitaanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku lahaa mahasalaad ayaa gebi ahaanba sheegay in aysan jirin wax isbedel oo lagu samaynayo dowladiisa haatan jirto. daawadayaal waxyaabaha kasoo kordhana qaybaha dambe ee wararkeena ayaan idinku soo gudbin doonaa. tan iyo kulanti dambena waxaan idinka tegayaa sidaas iyo ammaane al.